wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland ayaa soo xidhay kulan laba maalmood ka socday magaalada Hargeysa kaasi oo ku saabsanaa dib u eegista ansixinta xogta waxbarashada ee sanadlaha ah shirkan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaasha gobolada gudoomiyaasha degmooyinka hay'adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada la taliyayaal dood iyo falanqayn kadib waxaa shirkaasi soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska Soomaaliland وإلهي مهدي مركور إيبان مهد علنا إله كلن كان قبسومي ديست إنه سورة قليي لبضع الشيء ونوسه أفنير كوجان كسو قرني عاف ماتقب عقل سليمة كرشف عنو الضوضلة ولو قلت راسين يي بالفالديشن كأمد بيجست لو سمعنا يو آلدن إمسك استماشوا وسأرد أحبار الشذا بربارنتي ساينسكو إمسك واحد نقول مهد علنا مركور كلن كان قبسومي ديسا سوق من قابياشي وسأرد أحبار الشذا بربارنتي ساينسكا يجع عنده كجزده NRC ورنتي لبضع الشو هالكم كالسعودية رول في عن كل هاي عديت حاجة تاكلين تا هي هذا حاجة تشرحات طيبة وحكولان لله وكرين عد كستا أو إمسك حسوق الشطي ورنتي هاي كم تهاي أنت عنكوجي هذا سيف درن هي هيدا كلام بدلنا نبغى عرب كل فن كوالفتون وجم هاد علنا إمسكو وآلات دم وين إنه وجود جرتو oo loogu tala galay sidii aan ugu daboolnayn baahideenna waxbarashada gaar ahaan wasaaradda waxbarashada barbaarinta sayniska oo ka soo bilaabanto eesiyada primariyada iyo secondariyada kuwaas oo loogu kantaroolay dhinacyo fara badan oo runtii ah inay wixii noqdaan update qayb libaaxna ay ka qaadato horumarka waxbarashada oo la horumariyaa waa meesha kaliya bulsho ka dhisanto waxbarashadu la horumarin waayana waa meesha kaliya ee bulsho ka dunto taas baa markaa ay tahay gacmaha isku qabsano macnaha imiska in la toosiyo la hagaajiyo waa wax halkan la isku yeeray dhamaantiin inaan fikradeena ku darsano soo noqdo imisku waxay noo anfaca mustaqbalka waa soo shirka loo qabtay waxaan rajo weyn ka qabaa final ka report ka soo bixi doona ee la wadaagi doona ka qaybgalayaashu inuu noqon doono mid wax ka bedel weyn ku sameeya say imaga u yaala imisku noqonna doono sanadkiisa markaan gaadhno inuu dood ay ka duwanaan doonto taan maanta halkan ku hayno iyadoo dhinac badan laga eegayo dhammaan waxaan mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha wasaaradda waxbarashada barbaarinta sayniska agaasimayaashu ka mid yihiin DJ agaasimaha waxeedyada gudoomiyaasha gobolada gudoomiyaasha degmooyinka oo runtii uga soo taraafalay ama uga soo socday meelo fogfog oo ka baxsan caasimadda qofka caasimadda degan ee ka soo qayb galiyo qofka gobolka imanaya dib waxa u dhaxeeyo kale different baa u dhaxeeya oo adkaysiga u dulqaadashada laba maalmood waad ku mahadsantihiin ma leh ku darsigiinni fikrad ahaanna waad ku mahadsantihiin ka wasaarad ahaan annaguna waxaan ku dul shaqayn doonaa sidii waxa halkan ka soo bixay lagu go'aamiyo ama fikradaha la isku report ka soo baxa aanu fulin lahayn hadii Allah wada loo ogolaado taas iyada anagana naga filasaan waxaan ku soo afmeerayaa wax wada qabadku waa waxa ugu muhiimsan ee dib bilaana ku horumaraan systemka shaqadiisuna wuxuu ka bilaabmayaa qofka u hooseeya karaaniga wax soo buuxinaya ilaa qofka u sareeyo wasaaradda hadii aynu u buuxino adeegan inoo shaqeynaya sidii loogu tala galay waxaan qabaa natiijada soo baxaysa noqon doonto mid midho dhala marka cid kastoo gacanta ku haysa imiska oo ah iskuulada macallimiinta maamulayaasha agaasimo waaxeedyada iyo wasaaradda madaxdeeduba inay runtii xil adag iska saaraan sidoo u noqon lahaa imisku mid midho dhala meel looga soo wada jeesan lahayn waxaan leeyahay waxaan isku ognahay guul iyo gobonimo kulanka labada maalmood socday waxa halkaasi la isla qaatay in kulamo dambe laga yeesho barnaamijkan xogta waxbarashada kaasi oo ah mid ballaaran isla markaasina ahmiyad gaar ah leh